gaari oo cadhameyle ah oo ay saaran yihiin raashin iyo shidaal ayaa goordhow u gacan galay ciidanka beelweynta ciise gaadiidkan waxaa la soo wareynayay in la geyn doono xuduudda si loo siiyo ciidanka beesha ciise ee dagaalka kula jira ciidanka Samaroon haddaba si xirfadaysan oo loo qabtay gaadiidkan iyo raggii watay ayaan faahfaahin kaaga hayaa waxaan kaloo ku soo gudbin doonaa Ismaaciil Cumar Geelle oo amar degdeg siiyay taliyaha guud ee militariga dalka Djibouti haddaba amarku wuxuu yahay in la duqeeyo ciidanka beesha Samaroon macluumaad ayaan kaaga hayaa waxaan kaloo ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ay wadaan ciidanka Puntland iyo kuwa maamulka waqooyi bari qodobadaas iyo waxyaabaha kale nagu soo kordha ayaan saaxiib yaaladiin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada hadeeta markii ugu horeysay ku soo biixad heli doontaa wararka iyo warbixinada halkan aan ku daabacno aragtidaadana qaybta commentiga noogu reeb waxaan ku bilaabayaa ciidanka beesha ciise ayaa goordhow gacanta waxay ku dhigeen laba gaari oo midu yahay waaraad mindhacan dhameyle yahay oo wada raashin iyo shidaal kaasi oo ku socday deegaanada ay maamulaan beesha Samaroon muuqaalkii ka horeeyay ayaan dabcan daawadayaal idinkula wadaagay in beesha ciise ay amar ku soo rogtay gaadiidka u kala safraya dhulka ciisaha iyo dhulka Samaroonka kaasi oo ah gaadiid walba oo u socda dhinaca Samaroonka in baaritaan oo wado raashin fara badan cuntooyinka quuto daruuriga ah saliid shidaal shaambooyin oomo yacni wax walba oo bini'aadanka muhiim u ah ayaa labada gaari ka buuxay gacanta ayaa lagu dhigay waa la qaniimaystay haddana waxa uu yaalaa xero ciidan oo ay maamulaan beesha ciise oo ku taalo xuduudda Itoobiya iyo Somaliland siis haddii loo fiiriyo xaq bay u leeyihiin beesha xaqudirarka ah ee ciise ciidamadoodu inay hubiyaan gaadiidka ka soo tallaabaya Itoobiya midkii Djibouti ka imaanaya ee Somaliland u socda waana caqabad xoogan tan waxay ku tahay dabcan sida wararku tilmaamayaan beesha Samaroon oo loo aaminsan yahay in askartoodu ay haraad iyo gaajo u dhiman doonaan sidaas lamida gaari booyad ah oo isna rabay dhinaca xuduudda Luuqhayo inuu ka soo galo gobolka Awdal ayaa gacanta lagu dhigay wararka aan helayna waxay tilmaamayaan in dhammaan howlgalladu ay ahaayeen kuwa si xirfadeysan u dhacay si qorsheysan u dhacay isla markaana lagu burburiyay cid walba oo gaadiidkaasi u ranaayeen laba sargaal oo ka tirsan ciidanka beesha ciise ayaan goordhow telefoonka kula hadlay waxaan weydiiyay haddii gaadiidkan ay u ranaayeen dad rayid ah oo aysan lahayn beesha Samaroon wuxuuna sheegay baaritaan ay sameeyeen kadib inay ku ogaadeen in gaadiidkan uu yahay mid si xeeladaysan loo qabtay oo waliba raashin fara badan biyo fara badan shidaal fara badan cuntooyinka quuto daruuriga ah bini'aadanku uu quuto oo noocyo kala duwan iskugu jira in markaasi ay gaadiidkan ku ranaayeen sidaasna gacanta loogu dhigay tanna waxay ku tusinaa dabcan ama ay ku tusinaysaa tusaale weyn oo ah in beesha la yiraahdo Samaroonku ay xilligan u diyaar garoobday weerar ay ku qaado ciidanka beesha ciise maadaama gaadiidkoodii la qaniimaysanayo oo aysan waxba u harin xeeladahan oo kale hadda kor waxa isticmaalay ciidanka waqooyi bari waagii la oran jiray ACC qaato kuwa Somaliland gaadiidka dabcan boosaaso ka yimaada ee Somaliland raashinka u wada ayay dhabaha u gali jireen marka waa xeelad aan xabad ahayn oo lagu curyaaminayo ciidanka ciise waa ciidanka Samaroonka sababtoo ah asgariga wuxuu ku dagaalamo ayaa waxay tahay sidaas si lamida toddobaadkii la soo dhaafay ayaa ciidanka Somaliland waxay gacanta ku dhigeen gaadiid la sheegay inuu u socday dhinaca Djibouti oo la aaminsan yahay inuu raashin iyo cuntooyin kale u siday beesha ciise ee degta dalka Djibouti laba toddobaad ka horna sidaas oo kale waxaa la sheegay in gacanta lagu dhigay ku dhawaad 4 gaari oo iyana la sheegay inay ka yimaadeen dhinaca Djibouti kuwaas oo la sheegay laftirkooda inay ahaayeen kuwa wada raashinka noocyadooda kala duwan isla markaana ku sii jeeday meelo kamida gobolka Awdal xeeladahan hadda isticmaalayaan Samaroonka iyo ciisaha ayaa ah mid ku cusub xeeladaha dagaalka sababtoo ah marka la eego dhaqdhaqaaqyada halkaasi ka socda iyo xog walba oo ku aadan howlgallada ay sameynayaan labada dhinac waxaad moodaa in xeeladahan ay isticmaali jireen maamulka waqooyi bari iyo Somaliland xilliyadii dagaaladu ay socdeen 2022 ilaa 2023 xubno sarsaro oo ka tirsan ciidanka Somaliland ayaa waxay sheegeen inay tallaabo cad ka qaadi doonaan cid walba oo ay ku helaan in ay ku lug leedahay ficilada ka dhanka ah qarannimada Somaliland oo ay laga soo abaabulayo dalka Djibouti halka mas'uuliyiinta Djibouti ay sheegeen inaysan iyagu ku lug lahayn wax ay Somaliland eedamaha ah ay jeedinaysa ee la xiriira in la laayay dad rayida kuwa kale la beegsaday kuwa kalena la afduubtay sida ay wararku tilmaamayaan
laakiin xiisadda dagaal ee u dhexaysa beelaha walaalaha ah ciise iyo samaroon ayaa gaartay halkii ugu sarreeyey iyada oo maalin iyo habeenna dagaal ay ka dhacayaan xuduudda Itoobiya iyo Somaliland halkaasoo Somaliland boqolaal ciidamo ah oo ay geysay ay ku guuldareysatay joojinta dagaalka iyo dhiigga halkaasi ku daadanaya ugaaska guud ee beesha ciise Mustafa Maxamed Ibrahim iyo suldaanka guud ee beesha samaroon Cabdirashiid Doodi ayaa labadooduba waxa ay sheegeen in ay wax wada hadal ah qaataan waxaana midka kale uu ku eedeynaya hurinta colaadda iyo dagaaladii ugu dambeeyay halkaasi ka dhacay tusaale suldaanka guud ee beesha samaroon wuxuu sheegay inuusan wax wada hadal ah la gali doonin beesha ciise ilaa inta laga sii deynayo ku dhawaad 7 maxbuus oo ka tirsan ciidanka beesha samaroon oo lagu qabtay tuulada Heemaal iyo tuulada Xariirka bilihii la soo dhaafay halka ugaaska guud ee beesha ciise usna uu sheegay in xeerka buuga ciise oo la soo bandhigo aysan yeeli doonin wax wada hadal ah sababtoo wuxuu ku eedeeyay beesha samaroon in iyadu isla haysiinayso dhul la wada dago oo weyn oo ka dhaxeeya dadka iyo xoolo dhaqatada beesha samaroon iyo waliba ciisaha Somaliland gaar ahaan Cabdiraxmaan Cirro ayaa colaadda halka ka taagan u saaray wasiirka arrimaha gudaha Somaliland wasiirka madaxtooyada Khadar iyo taliyaha guud ee militariga Somaliland Nimcaan Gaxnuug dhammaan saddexdaaninba waxay ku guuldareysteen in labada beelood la wada hadalsiiyo iska badaa in la hadalsiiyo in la kala qaado ciidamada isku horfadhiyo tuulooyinka Heemaal Habaas Bolol iyo Durdur oo la sheegay inay yihiin xuduud ku taala dhinacyada Somaliland iyo Itoobiya wixii inta ka dambeeyay beesha ciise waxay hub ka heshay militariga Djibouti hubkaas oo la sheegay in si qarsoodi ah looga soo dejiyay magaalada Lughaye sidaas si lamid ah hubkaasna laga soo dejiyay magaalada Seyla waxaana Somaliland ay sheegtay in warkan oo baraha bulshada soo galay ay xaqiiqadooda ku raajoogaan baaris aan sameynayna waxaan ku ogaanay in laba doonyood oo ah kuwa dheereeya oo aan wada wax calan ah ay 17kii bishii la soo dhaafay ku soo xirteen dekada magaalada Seyla hubkaana lagu dejiyay markaasi ama laga degay doomahaasi iyadoo oo lagu qaaday 3 gaari oo mid kamid ah u yahay Candhameele qodobkan ugu dambeeyana maamulka waqooyi bari ayaa sheegay garaadadoodu inay qaadayaan tallaabooyin ka dhan ah ciidanka Puntland ciidanka maamulka Puntland ayaa la soo warinayaa inay bilaabeen qashqashaad iyo arbushaad ay ka bilaabeen gudaha magaalada la yiraahdo Yubbe ilaa magaalada Shimbiraale oo ku yaala gobolka Sanaag ciidanka la yiraahdo BNBF oo ah ciidamo uu tababaro imaaraadka kharashaadkooduna uu siiyo ayuu dan u adeegsanayaa dagaal inay la galaan ciidanka maamulka waqooyi bari tan iyo markii maamulkan dhidibada loo taagay garaadada waqooyi bari waxay soo saareen hal go'aan oo ah in ciidanka waqooyi bari aysan dagaal toos ah ku qaadin ciidanka Puntland laakiin haddii ciidanka Puntland ay dagaal toos ah ku soo qaadaan ciidanka waqooyi bari inaysan gacmaha laaban oo ay isdifaacaan waana taatika aan caadi ahayn oo ay isticmaalayaan garaadada dhulbahante Saciid Cabdullaahi Dani ayaa gobolka Sanaag u diray taliyaha guud ee ciidamada BNBF Cabdirabbi oo ay qaraabo yihiin Cismaan Maxamuudna ka soo jeeda waxaana la soo warinayaa in taliya Cabdirabbi oo la kulmay saraakiisha ciidamada BNBF ee ku sugan tuulada Shimbiraale iyo tuulada la yiraahdo Yubbe oo ceergaabo u dhow isagoo u sheegay in wax dagaal ah aysan la gelin ciidanka la yiraahdo maamulka waqooyi bari taa bedelkeedana wuxuu ku amray in ay xeeladeyn sameeyaan oo ay iska difaacaan haddii duulaan lagu soo qaado laakiin iyagu aysan xabadda bilaabin taasoo ah in labada dhinac ay isku jaakirayaan marka laga hadlayo xiisadda colaadeed ee ka taagan magaalada Ceergaabo isku haynta ugu weyn waa magaalada Ceergaabo oo Dani xilligan uu ku adkeysanayo qabashadeeda inay ka xigto oo kaliya in ciidanka waqooyi bari halkaasi laga saaro halka garaadada waqooyi bari ay sheegeen inay sidii laascaano ugu dhinteen ay Ceergaabana ugu dhiman doonaan oo aysan yeeli doonin in Saciid Cabdullaahi Dani ama Cabdiraxmaan Cirro waa ciidamada Puntland iyo Somaliland ay magaaladaasi qabsadaan oo la sheegay inay u tafaxaydanayaan una ordayaan qabashada magaaladaasi shirkii nabadda ee Ceergaabo ku soo dhamaaday sanadkii 2025 waa sanadkii la soo dhaafay ayaa Dani iyo suldaanka guud ee Harti iyo sidaas si lamid ah Cabdiraxmaan Cirro waxay ku heshiin waayeen cid Ceergaabo difaacaysa tusaale beesha Warsangeli waxay leedahay inay xaq u leedahay qabashada iyo difaaca Ceergaabo halka beesha Reesha Isxaaq iyadana ay leedahay Ceergaabo annaga ayaa degna annaga ayaa difaacayna halka Puntland iyana ay leedahay Ceergaabo qabashadeeda annaga ayaa leh annaga ayaana difaacayna waana isku haleyn dhinacyo leh oo aan loogeyn in ay xaaladdu halkaasi ku biyo shuban doonto si walbaba ha aatee xiisadaha halkaasi ka taagan ay dad badan aaminsan yihiin inay xaaladda dab kale ku sii shidi doonaan iyadoo aan xal laga gaarin dad badan waxay aaminsan yihiin inay xaajadu tagi doonto meel aan waxba laga qaban karin
gudaana saaxiibayaal wararkeena intaas ay ku dhan yihiin haday tahay markii kugu horeysay nagu soo biir waxaad heli doontaa wararka iyo warbixinada halkan aan ku daabacno faalada qaybta commentiga inoo reeb sida u aragtid colaadaha beelaha Ciise iyo Samaroon xalku wuxuu ku jiro iyo ishubeynta labada dhinac sida loo xallin karo soo dhawaada saaxiibayaal